haweeney u dhalatay waddanka Jarmalka ayaa waxay dareentay xanuuno fara badan kuwaas oo jirkeeda aad u saameeyay waxayna da'deedu ahayd 17 sano jir. waxaa helay xanuun daran oo ay dhaqaatiirtu garan waayeen waxa uu yahay xanuunkaas iyo wax sababay. waxay u sheegtay dhaqaatiirtii inuu qaniinay bahal mar ay iyada iyo qoyskeeda ay ugu baxeen dalxiis mid ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika. cudurkiina uu saameeyay jirkeeda oo dhan. waxaa loo baahday in la sameeyo qaliin si loo badbaadiyo, waxaana lagu qasbanaaday in la raadiyo dhiiggeeda si loogu shubo inta aan qaliinka lagu sameynin ka hor. waxaa la baaray dhammaan qoyskeeda, dhiiggeedana waxaa laga helay keliya hal gabar oo iyada ka yar, taas oo da'deedu ay tahay 9 sano. gabadhii waa ay diiday in la geliyo qaliinka iyadoo u baqaysa walaasheed ka yar. waa ayna sugtay ilaa xanuunka uu ku faafo jirkeeda oo idil. waa ay niyad jabtay, waxa ayna kortay sariir. waxayna ogeed in jirkeeda uu ku faafayo cudurkan oo aysan ka maarmin qaliinkaas. muddo 3 sano ah kadib waxaa sii siyaaday xaaladii gabadha, waxa ayna ogolaatay qaliinkii. markii lagu caliyay gabadhii yareed baaritaanada, waa ay yeelan waayeen dhiiggoodii maadaama ay 3 sano ka soo wareegatay, waana la waayay qof gabadha nolosheeda badbaadisa. waxa ay la daalaa-dhacaysaa xanuun jir ahaan iyo maskax ahaanba. dhaqaatiirtii waxa ay baraha bulshada ay ku kulanto ay ku faafiyeen in gabadhan Jarmalka ah ay u baahan tahay cid caawisa, uguna deeqda dhiig noocaas ah. arrintaas oo ahayd mid aan dhici karin ay wanaagii Ilaahay waxa ay heleen gabar muslimad ah oo ka soo jeeda wadamada Carabta oo lagu magacaabo Fatima. waxa ay timaatay wadankii waxayna caawisay gabadhii ka soo jeeday wadanka Jarmalka, waxaana la sameeyay qaliinkii waxa uuna ku soo dhamaaday si guul ah. Fatima waxa ay rajadeeda ahayd inay mar uun aragto qoftii ay badbaadisay nolosheeda. markii ay is arkeen, Fatima iyo gabadhii ka soo jeeday wadanka Jarmalka waxa ay iskaliyeen laabta sidii inay ahaayeen saaxiibo hore oo kale. gabadhii Jarmalka ahayd waxay ogaatay Fatima inay haysato diinta Islaamka. Fatima waxay u sheegtay in diinteeda ay farayso inay caawiso qof walba oo bini'aadam ah iyadoo aanan u fiirinayn wax diin ah. waxa kale ay Fatima u sheegtay gabadhii in Ilaahay iyo rasuulkiisa ay amreen muslimiinta inay u naxariistaan qofka bini'aadamka ah. waxa ayna u sheegtay xadiiskii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaadee ee ahaa in Alle uu u kaalmeeyo addoonkiisa inta addoonka uu u kaalmeynayo walaalkiis. gabadhii Almaaniyadda ahayd waxay u mahadcelisay Fatima, waxayna kala qaateen taleefanada, waxa ayna is siiyeen hadiyado. maalmo kadib, Fatima waxaa message u soo dirtay gabadhii Jarmalka ahayd iyadoo u sheegaysa in iyada iyo familkeeda ay qaateen diinta Islaamka ayna ku qanceen. aad ayayna ugu mahadcelisay maxaa yeelay wanaagga ay u sameysay ayaa wuxuu sabab u noqday in ay soo gasho diinta Islaamka.